مسؤولين كترسن قلها دحي حسبك معارضك وداني islamarkaasina ay ku wehelinayaan cuqaal dhalinyaro iyo aqoon-yahan beel kamida beelaha deegaanada gobolka Gabiley ayaa ka dhawaajiyay inay iska casileen xubinnimadii iyo mas'uuliyadii xisbiga wadani taasi oo ay hoosta ka xariiqeen inay si rasmi ah ugu biireen xisbiga muxaafidka kulmiye mas'uuliyiintani oo arrimahaasi ka hadlaysa ayaa waxay yiraahdeen kulkaad aragto miisaaniyad aad saarto xisbiyada ee meesha doorasho ka socoto meeshii aad istiraaho waxba ka soo socdaan ee ka soo muuqdaan ayuu horta u guurtaa marka waxa weeyaan sheekada waxaan u arkay xisbiga wadani in madax geelin sidaaba uu dhigi ay sheekada ka soo socoto oo xisbi soo baxaya aanu ahayn marka waxaan halkan ka cadeynayaa xubinnimadii aan ka ahaa xisbiga wadani ee golaha dhexe oo kaadkiisii aad arkaysaan ya in aan markaa sida maanta kaga wareegay ana ku wareegay xisbiga kulmiye horena aan ula soo shaqeeyay oo dadkii soo saaray kulmiye aan ahaa waxa weeyaan guri aad dhistay hadii hadana maanta dumi lagu yiraahdo horta ceeb ku marka waxa weeyaan xisbigii horeba aan u dhisay ayaan imigana inaan dhisan rabaa aan ku dadaalayaa saa u dhisi lahaa aan u xidhanaya kaba buura suuq niminay anagoo ah beesha bahawaraadan ahayna xisbiga wadani in muddo ku soo jirnay ahna siyaasiyiintii inta badan la soo shaqeeyay qaybta abaabulka iyo kala shaqeynay macnaha waxaan raaddaa sidii xisbiga kor loogu qaad lahaa waxa halkaan naga soo baxay waxa la yiri ninka aan garan waxa jooga waxa soo socda ma garto cadaalad darradii ugu weyneed buu nagu sameeyay xisbigii wadani anagoo ka filanay inaan wada shaqeyno oo ka dhex muuqano oo dadkii ugu firfircoonaa ahaa ee la shaqeynay ahna dadka degan gobolada awdal iyo Gabiley iyo maxaa raaddaa Selel intaaba waanu deganeyn waanu ka taageeri jirnay waxa nagu dhacay ma taqaanaa degmadii Gabiley markii ugu horeysay anagoo sameynay inaanu ka dhex muuqano xubnaha gobolka Gabiley ama degmada Gabiley loo magacaabay inaan midbal naga soo dirin bahawaraadan baa jeedaa baasamaroon baan midbal naga soo dirin marka waxaan halka ka ogaanay inaan wax alla wax la noo ogol yahay jirin cadaalad darrana nagu sameeyay wax qabad uu sameeyayna aanay jirin ninka imiga xilalka beenbeenta naga reebay xil shaqeynaya hadhow toole ugama fadhino marka waxa la yiri xabaaliye ninkeed loo kala tag marka horeba waxaan ahayn xisbiga kulmiye imigana waxaanu ku soo noqonanaa doonanaa inaanu ka hawl galno xisbiga kulmiye waananu shaacin doonaa sidaan ugu biirano xisbiga kulmiye waana lagu soo dhaweyn doonaa insha Allah aad baan u salaamay baahda saxaafada ee halkan isugu timiday iyo dhammaan marka sharaf kale runtii anagu waxaan ahayn dadweynaha ku dhaqan gobolada galbeedka ee ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ee wadani maanta halkan waxaan ka shaacinanaa inaan ka soo digaroganay xisbiga mucaaradka ee wadani sababa jira awood xisbiga mucaaradka ee wadani ma siday moodayaan mise siduu dadka yahay mahmaaba tiraada geedow ma waxaan ku mooday mise waxa noqotay siday dadku moodayaan si ka duwan baa jirta waxyaabo badan oo inaga qarsoon baa jira haddii aanu nahay dhalinyarada gobolada galbeedka ama dhalinyarada Soomaaliland ee wax garadka aqoon-yahanada saddexba kugu aamini mayno qosol dhool cadaynta beenta kugu aamini mayno anigoo ah caaqilka dhalinyarada beelaha baasamaroon ahna nin aqoon-yahana ahna siyaasi muddo badan ku soo dhex jiray siyaasadda waxaan halkan ka cadeynaynaa haddii aanu nahay beelaha baasamaroon inaanan maskabkii iyo xilalkii aanu ka filaynay aanu ka weynay xisbiga wadani oo muddo badan la shaqeynay sida awgeedna haddii aanu nahay beelaha baasamaroon gaar ahaan beesha leedahay bahawaraadan Gabiley waxaanu go'aansanay inaanu ka baxno ama ka soo digargano oo ku soo digargano xisbiga kulmiye si kastaba ahaatee waxa maalmahan dambaysa soo taraya ka digarogashada ay taageerayaasha xisbiga wadani ka soo digaroganayaan xisbigooda isla markaana ay ku soo qulqulayaan xisbi xaakimka kulmiye waa Cabdirasaaq Axmed Hayaan Ilka Case Somnews TV Gabiley.